qof hogaamiye ah oo hay'ad dawladeed ama dawladba hogaaminaya inuu guul ka keeno nidaamka dawladeed uu hogaaminayo isla markaana uu dadka uu hogaaminayo kob cagaar leh oo ka soo doojiyo qof shirkad maamulaya inuu shirkadda sumcadeeda ballaariyo wax soo saarkeeda iyo macaashkeedana ballaariyo iyo guud ahaan qof waliba shaqadii loo dirtay inuu guul ka keeno waxay ku xidhan tahay hab fikirka qofka haddaba sidee bay u fikiraan dadka guuleysta nabad dhammaantiin ba ku soo dhawaada kulan kale iyo taxanaheennii buug wadaag kulanka buuggan aynu kusoo qaadanayna waxaa la yidhaahdaa how successful people think dadka guuleystay sidee bay u fikiraan buuggan waxaa qoray qoraaga loo yaqaano John Maxwell waa qoraa iyo tababare dunida ka caan ah oo ku caanbaxay tababaridda iyo qoridda arrimaha la xidhiidha hogaaminta wuxuu tababaray hogaamiyayaal kala duwan oo dunida daafaheeda hay'ado dawladeed iyo ganacsiyada maamula waxaanu leeyahay buugaag kala duwan oo ay ka mid yihiin buuggan iyo buugga kale ee loo yaqaano 21 xeer ee qarniga ee hogaamiyaha qarniga 21aad iyo mid kale oo loo yaqaano 5 xeer ee hogaaminta iyo buugga kale buuggan wuxuu qoray 2009 waxaanu ka kooban yahay 100 bog oo kaliya wuxuu buuggan kaga warramaya uu leeyahay dunida aan ku noolnahay dadka sida tolmoon oo fikra baahi weyn baa loo qabaa waayo dadka sida tolmoon oo fikra dunida caqabadaha yaalla xaliyaan horumar bay keenaan nolol bay abuuraan waxaanay keenaan markaa in nolol lagu nool yahay caqabadaha badan la ka wanaagsan lagu noolaan karo oo guulo hor la gaari karo sida daraadeed way kooban yihiin dadka sida tolmoon u fikra wuxuu markaa qaabka tolmoon qofku u fikraya waa xirfado la baran karo oo qofku ay tahay in uu isku dayo inay barto oo aanay khasab ahayn qofkaasi inuu u dhashay ama uu la dhashay wuxuu halkan ku soo gudbinayaa 11 xirfadood qoraagu wuxuu leeyahay qaabka aan u fikirnaa waxa uu jaangooyaa waxa aynu sameynaynaana waxay jaangooyaan ama ay soo saaraan waxaynu qabanaynaana waa waxa qeexa waxa aynu nahay ama dadka aynu nahay 11 xirfadood waxa kamid ah ugu horeysiinaya xirfadda loo yaqaano ama waxa loo yaqaano big picture thinking in qofku hadii uu rabo inuu noqdo hogaamiye ku guuleysta ama leh fikir tolmoon in uu ka fikiro wax weyn inaanu ka fikirin waxa u muuqda laakiin waxa u muuqda waxa ka dambeeya inuu ka fikiro tusaale ahaan buu leeyahay hogaamiyuhu ma aha inuu ka fikiro oo kaliya inuu doorasho galo oo kursiga ku guuleysto laakiin waa inuu ka fikiro oo big picture thinking uu yahay marka uu ku guuleysto doorasho ama uu madaxil u qabto maxay tahay waxa uu qabanaya ardaygu ma aha oo kaliya inuu ka fikiro inuu keeno imtixaanka darajada ugu sareysa ee A+ ama A*, laakiin waa inuu ka fikiro markuu darajada keeno maxay tahay waxa uu qabanaya marka wuxuu leeyahay waxay naga caawin karaa in qofku uu noqdo qof wax weyn ka fikiraya 3 qodob kow in qofku uu noqdo qof xog badan helaya inaad wax badan dhageysato laba qofku inuu diyaar u noqdo inuu wax cusub barto qaabkii kasta ee kale uu ku baran karo iyo 3 qofku inuu ka fikiro waxa hadda dadka oo dhan u muuqda ama isaga u muuqda ee obvious ka ah la isla garanayo waxa ka dambeeya ee ka dhalanaya qodobka labaad ee xiisaha leh uu ka hadlaya wax weeyaan uu leeyahay waxa la yiraahdaa strategic thinking markuu qofku fikirayo waa inuu u fikiro qaab qorsheysan qaabka qorsheysan ee loo fikirayo wuxuu leeyahay waxay keentaa in ay cadaato halka aad u marayso hab fikirkaaga wuxuu leeyahay marka faa'iidooyinka ay leedahay qofku inuu si strategic ama qaab qorsheysan u fikira waxa kamid ah kow waxay ku fududeynaysaa hab fikirkaaga hadii aanad lahayn qaab qorsheysan oo aad u fikirayso waxa hawaawi bay noqonayaan mana gaari kartid laakiin kow way ku fududaanaysaa marka istiraatiijiyad leedahay ama hab fikirkaaga qorshe aad u marayso uu leeyahay wuxuu ka warramayaa uu leeyahay oo kale uu ka caawinayaa inaad strategic thinking yeelato dadka kula shaqeynaya ama aad rabtid fikirkaaga inaad ku qanciso way fududaanaysaa inay ku soo raacaan oo flowriskaaga inaad ama dadka ku soo raacay fikirkaaga aad ku qancinayso waxa ay ku qancayaan maaha waxa weynaad ka fikiraysa laakiin qorshaha aad u maraysay aad u sheegtay ayaa u saamaxaya wuxuu ku saamaxayaa buu leeyahay number 3 strategic thinking in waxaagi ay noqdaan focused ama abaar aad yeelato iyo meel aad xoog saarayso iyo waxaad u soconayso oo aanad ka leexleexanayne aad leedahay focus iyo meel aad u socoto taas oo iyada lafteedu sii xoojinaysa marka qodobka labaad ee ah in uu ka caawin in dadka ku soo raacaya flowriskaaga ay ka caawinayso marka inay ku qancaan fikirkaaga qodobka kale ee xiisaha leh ama xirfadda saddexaad ee xiisaha leh uu ku soo bandhigayo waxa kamid ah uu leeyahay hab fikirka qofka guuleystay ama hogaamiyaha guuleystay uu leeyahay
وهب فكر إن وكوتشن جريا أما وسؤال قال يا سيدي عادي هيدا اللي فكري sida dadku caadiga u fikirayaan guud hadii qofku uu fikiro buu leeyahay kama duwanaan kara dadka kale mana keeni kara guul ka duwan nolosha caadiga ah dadku ay ku nool yihiin sida awgeed waa inaad isweydiiso ama hogaamiyaha guuleystay waa ka isweydiiya hab fikirkan ay dadka uu la nool yahay u fikirayaan waa inuu su'aal galiyo oo wax iska weydiiyo yiraahdo maxaa sidan loogu fikiraya ama maxay dhaqanada caynkana loo sameeynaya in qofku uu sida caadiga ah ee popular thinking ka uu noolaada wuxuu leeyahay waxa laga yaabaa qofka waxay siisaa rajo beena oo waxaan way iska xalismi doonaan waa laga bixi doonaa weligeed bay sidaas ahaan jirtay waxay siisaa false hope in qofku rajo beena uu ku noolaado waxay siisaa qofka inuu isaga noolaado meel bilaa ciriiri ama bilaa caqabad oo comfort zone bay siisaa laakiin qofku inuu arinta u question gareeya waxay keentaa kow inuu isweydiiyo maxaa sidan caadiga ah loo fikirayo dadku uga fikiraan nolosha aan ku noolnahay maxaa qaabkan aan u fikirnaa ka bedeli kartaa hadii waxaan aan bedelno maxaa iman kara dadka kale ee isaga ka soo horjeeda sida u fikirayaan buu tixgeliyaa taasina markaa waxay keentaa in wixii caadiga ahayd uu waxa ka macquulka ah dadku la nool yihiin ka qaato wixii iska macnaha la ee dadku isaga dhex noolaa iska ilaashanayeen beenta rajada beenta ah iyo wixii la halmaalayo dhanna inuu markaa intuu ka baxo uu abuuro qaab kale iyo fikir kale oo nolosha waxa weeyaan ku dabaqma oo u saamaxa markaa inuu horumar iyo guul hor la u keeno waxa kale ka waramaya waxa loo yaqaano unselfish thinking wuxuu leeyahay qofka guuleysta waa qofka ama dadka guuleysta waa dad leh dareen ka balaaran baahida naftooda oo kaliya inay ka fikiraan waa dad aan selfish ahayn ka fikira dadka ay la nool yihiin ama ay maamulayaan ama ay u talinayaan iyo xaaladahooga wuxuu leeyahay unselfish thinking qofku wuxuu ka caawiyaa kow in qofku horta marka ugu horeysa uu dareemo inuu kamid yahay bulsho weyn dib iyo dheef uu la qaybsanayo laba waxa uu saamaxdaa inuu qofkaasi nafsiyan uu dareemo inuu yahay qof waxa weeyaan gudaha farxad iyo ka dareemaya baraare marka aanu selfish ka ahayn waxa uu saamaxdaa marka in dadka uu la nool yahay uu ka fikiro sidii uu uga saari lahaa marka ama dhibta ama balaayada ku hareeraysan qodobada iyo qodobo kale oo marka la isku daro 12 noqonaya buugan ku soo bandhigaya qoraago waa buug runtii aad u xiiso badan aadna u kooban qof kasta oo raba marka inuu ama wax akhriska bilaabo ama uu ku dib badan yahay buugagta waaweyn inuu akhriyo waa buug ka caawin kara inuu wax akhriska bilaabo waayo waanu kooban yahay cutubiyada uu ka kooban yahayna si aad u kooban oo qofku uu kala dhigan karo oo marba in uu akhriyo karo oo mararka qaar xataa aan isku xidhneen aan khasab ahayn inaad isku xidhaa buu ka kooban yahay luqadda uu ku qoran waa luqad aad u fudud waa buug runtii qofka u saamixi kara inuu akhriska ku dhiirado ama uu jeclaado sidoo kale in uu horumariyo xirfadiisa hab fakar ayuu ka waramayaa waa buug aan idin kula talin lahaa in akhridaan buugga kan ku xiga intaan ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa buug wadaag وأدوم ذاك